rasuulku wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa xun daawashadiisa ilaahay dartii qofka isaga daaya nuur ba alle ugu bedelaa qalbiga u geliya ilaa qiyaam saaca laga gaaray waxun daawashadiisa qofka duu iska daay rasuulku wuxuu sheegay daawashada waxun daawanayso ama qof dumar ajnabi eegayso ama waxaan ku fiicneen daawanayso waa falaad sumaysan oo qalbigaaga ku dhacaysa hadda qofkii falaad lagu soo tuulo sumaysan halka kaga dhacda noloshiisu waa adagtahay Soomaa qalbiga laga noolyahay qalbiga ka dhimanaysa marka saasa rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxaana shariicadu sheegtay qof kasta oo ina kamida in uu zinada qayb uu ka qaadanayo indhuhu waa zinaystaan waa daawashada xun gacmuhu waa zinaystaan waa waxaan sax ahayn oo taabtaan luguhu waa zinaystaan waa waxaan sax ahayn oo maxaan ku yiraahdaa ay u socdaan dhaguhu waa zinaystaan waa wax khaldan oo ay dhigaystaan afku waa zinaysanaya waa wax xun oo ku hadlo laakiin intaas oo dhan waxa isku soo hoorinaya farjiga haddii zinadii ficilka ahayd uu markaa sameeyo wixii ay xubnahaas oo kale dhan doonayeen isagaa u rumeeyey haddii qofku zinada weyn uu ka badbaadana wixii ay xubnaha kale doonayeen xumaan isagaa u diido beenay